دابشيل جروب وهذا دونا عبد العزيز عبد الله الدعالي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما مرتي شرفتا كسو قيب كشي حفلدان aadka u ballaaran ee qalin bedelashada ah waan salaamayaa qof kasta booskiisa uu ku leeyahay maqaamka uu ku leeyahay xafladda dhammaan waxaan hambalyo u dirayaa anigoo ku hadlaya magaca Dahabshiil Group ardaydan iyo waalidiinta ardaydan qalin jabinaysa iyo waalidiinta iyo jaamacadda Bariga Afrika dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo waad guulaysateen ilaahay hayni ku guuleeyo waxaan kaloo inta aynu ku darayaa safar dheer ayaa ku jirtaan waxbarashadii maanta qayb ka mid ah ayaad ku guulaysateen laakiin waxaad idin dhiman in badan oo waxbarashaduna sida la inoo sheegay ma dhamaato waa min al-mahdi ila al-lahdi maalinta dhalato waxbaad baranaysaa ilaa aad godka qofku galo waxbarashada kama haro markastoo ku kordhana garaad iyo aqoon baa ku kordhaysa ardada marka waxaan kula tartaarmayaa inay waxbarashada halka kaga harin ee ay si ballaariyaan oo aqoontooda ay kordhiyaan shirkadana magaceeda halka ku taaganahay Dahabshiil Group dhammaantiin cidaan maqan inaysan ku jirin baan filayaa guri kasta iyo hadii ilaahay idmaayo reer kasta iyo xaafad kasta waa laga yaqaanaa waa u adeegtay konton sano ka badan ayay ummadda Soomaaliyeed u adeegaysay u shaqeynaysay shirkadu waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan qaybta koowaad oo ah xawaalada oo ka qayb qaadata oo xawaalada ah qaybta ku xigta waxa weeye bangigii oo adeegyo kala duwan bixiya number 1 adeega koowaad oo bixiyo waxa weeye inuu ganacsiga maal geliyo entrepreneurka oo waliba ardada idinku aad tihiin dadkan rabno inaan la shaqeysano oo hadda soo baxay oo aqoonta bartay waxa weeye iyaga way dadkan rabno inaan la shaqeysano oo aan maal gelino fikradahooda iyo afkaartooda dabadeedna iyaga aan wada shaqeysano ee iyagu ay shirkadaha u shaqeynayaan iyagu naftooda u shaqeystaan annaguna aan maalgelinta u bixino inta waxa dheer shirkadu waxay bixisaa isgaarsiin adeegii fiber oo internetkii ahaa oo ninkii raba inuu dunida ka adeegto oo dunida la xiriiro caalamkeena ku xiraya baan inii haynaa dhammaanteed waxaan kaloo inii haynaa deebihii yaryarka ah ee microfinance-gii waxaan kaloo baaxinaa adeegii guryaha iyo dhismaha dhammaan adeegyadaas oo dhan u haynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka shaqeynaa ugu yaraan 130 dal oo dunida ku yaala marka meel kasta aad joogtaan waa in la joognaa aad iyo aad baan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh